Ramadaan Kariim saaxiibayaal meel walba aad dunida ka joogtaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta caalamka. Real Madrid oo lacag waali ah ku soo qaadanaysa Toni Kroos ka cusub. Real Madrid ayaa xiiseynaysa inay la soo saxiixato xiddiga khadka dhexe ee Crystal Palace Adam Wharton xagaagan sida lagu sheegay warbixin cusub. Sida laga soo xigtay Daily Mail, Madrid ayaa si gaar ah ula dhacsan bandhigyada cajiibka ah ee Wharton tan iyo markii uu ka soo laabtay qaliinka eernada. Sargaalka sare ee kooxda ee dhanka indhaindhaynta Julian Calvert ayaa la sheegay inuu taageero weyn u yahay 22 jirkan kaasoo la filayo inuu qayb ka noqdo kooxdii ugu horeysay ee England ee uu xusho Thomas Tuchel. Manchester United iyo Liverpool ayaa sidoo kale la sheegay inay xiiseynayaan Wharton, halka Manchester City ay iska dhaaftay inay u dhaqaaqdo bishii Janaayo sababo la xiriira dhaawaciisa. Crystal Palace ayaa ku qiimeynaysa Wharton ku dhawaad lacag gaaraysa 70 milyan oo pound, taas oo ka dhigan faa'iido weyn maadaama ay kaga soo iibsatay Blackburn Rovers 22 milyan oo pound sanadkii 2024. Palace ayaa laga yaabaa inay weydo xiddiga badan oo ka tirsan safka koowaad ee kooxda maadaama sidoo kale xiise laga soo gudbiyay xiddigaha sida Eze, Maguire iyo Jean-Philippe Mateta. Kooxda uu hogaaminayo Glasner ayaa ku jirta kaalinta 12aad ee jadwalka Premier League.